madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wafdiga ay la socdeen madaxweynayaashaasi markii ay tageen magaalada Beledweyne ay sheegeen ulajeedka ugu weyn ee magaaladaasi ay u tageen in ay tahay in ay soo indheeyaan xaaladda ay ku sugan yihiin dadka fatahaadda ay saameysay ee ku dhaqan magaalada Beledweyne iyo deegaanada gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ee fatahaaddu saameynta adag ay ku yeelatay. Waxa ay sheegeen in ay qayb ka yihiin dadka u gurmanaya dadkaasi, iyagoo tilmaamay in loo baahan yahay in gurmad bini'aadanimo oo kala go'aan lahayn in dadkaasi la gaarsiiyo. Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Beledweyne gaar ahaan garoonka diyaaradaha magaaladaasi ka hadlay ayaa sheegay in gurmadkii ay ugu talagaleen madasha xisbiyada qaran dadka ku dhaqan gobolka Hiiraan ay gaarsiiyeen, isla markaana loo baahan yahay in dadka halkaasi ku dhaqan Soomaali in ay u gurmadaan. Sidaad la socoteen waxaan u soconnay waxay ahaayeen in la gargaaro dadkii dhibaatadu ka gaartay fatahaadii webiga. Alxamdulillah waxaan soo ku guuleysanay inaan soo aragno meelihii dhibaatadu ka dhacday iyo sida ay u kala badnaayeen. Waxaan la socdo guddigii gargaarka oo ugu weyn tahay Aamino ay gudoomiye ka tahay Cabdirasaaq gudoomiye xoggan oo ka yahay wixii yaraayo la soo aruuriyay dadkii soo aruuriyayna khayr Allah ka siiyo ayaga lagu wareejiyay aragtideena iyo sidaan u aragnana waa siinay waana dadaan ku aaminsanna insha Allah sida ugu wanaagsan inay u guda doonaan waajibkaas waa yar yihiin laakiin wixii la haayaa la qaybsanaa Ilaahay idankiisa dadkana Ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu asagu gargaaro asaga gargaarkiisu waxtar yahay laakiin haddana waxaan aad uga mahadcelinaynaa sidoo kale dadkii runtii ka qayb qaatay waxa yaroo la keenay lacagta sidaan idin sheegnay 200 kun ay ahayd marka halkan waxaa loogu talagalay maxaan ku yiraahdaa 4 kun oo qoys ayaa loogu talagalay marka insha Allah hawshaas guddiga ayaa si wanaagsan u mataqaana u maamuli doona annaguna meeshan kala socod doona aad iyo aad u mahadsantiin. deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxaa saameyn ku yeeshay fatahaadda uu sameeyay webiga Shabeelle ee mara gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha deeqaha bixiya ay dadka halkaasi ku dhaqan ka dalbadeen in gurmad aan kala go' lahayn lala soo gaaro dadkaasi si loo samata bixiyo dadka saameynta ay ku yeesheen fatahaadda webiga Shabeelle. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Galmudug TV.